najixii ay lahayd oo haatan la jooga hoodadii ay ogolayd. maskaxdeedu ma baandhayn waxay qabanayeen, waqtigan uma saamaxayn. ruuxeedii yaray dareen baa qarqariyey, indhaheedii caddaa daruur baa hadhaysay, calooshaa wareegtay, laabtaa dhaqaaqday, way ishayn kari weyday. Zahra waa tawacday. Zahra oon waxba ogeyn ayaa tidhi halow, ilay waa qof dareen. gebigeedaba saaqee hadalkii odhan lahayd ayaa soo bixi waayey. dhuunteedaan furnayn qasab ayay ku bannaysay. naaheedha Zahra miyaad gashay maanta facebooka? Zahra may filan su-aasha maldahan. haddii ay haa tidhaahdo dembi ayay yeelan kartaa, may haddii ay tidhaahdana been bay sheegi kartaa. beenta ayay ku dhaqaaqday. mayhuuna hee bay ku tidhi kombyuutarkaagii miyuu ku ag yaalla ayay ku hadal celisay. dhinaca intay u soo riixday ayay deedna tidhi mayhuuna macaan maxaa jira? najaxoon isdhibayn ayaa sii wadatay. naadhegii telefoonka sow kuma hadlaysid, haddaba facebookkaaga ka galdeetee telefoonka waxbaan ku tusayaa oo dee hunamadi tiraadid facebooka gal isug aan gale. ma gashay? wax yar uu wareegayaa telesomtii cuslayd weeyaanay isug. ma gashay ayay haddana ku celisay. haay imkaan galay ayay tiri. haye cambaradheerti magaceedii ku qor. naa maxaad aragtay? haay ayay ku tiri waan ku qoraye. sawirada u sarreeya ma arkaysaa? haa, balaayada madaxa dhuuban fur oo horey u soco. alla naakuusow ayaan arkaa. naayigadaa waxaasoo bal horay u soco sawirka. alla hoognay naamahooda ka sheekee. hadhnayey naabal sug malaha, wallaahi waa iyadii. acuudu billaah, afka xunday. waa xalay xafladaasi oo daheedhe naabal sug oo waa xir eeriboorka ay isugu yeedhay oo dhani miyaan garanayaaba ma kuwiiba naaway ka buuxaane. sawtaatii yareed ee gaabnayd miyay kula soo hadashay maanta? mahooda haddaa ayo hunamaya, bal iminkaan garaaci doonaa. mayay iska dhaaf ilaa ay soo hadasho lama hadlayno. telefoonkii ayay hoos u dhigtay. qaybtii ay sariirta kaga jiibsanaysay ayay soo koobtay iyadoo oo jilbaha ku nabaysa beerkeeda. dareenkii ay u qabtay najax waxaa ka xoog batay kan ay iyadu ka heshay hoodo. waxay dareentay in la khiyaameeyey. way og tahay in aanu ninku meel ugu xidhnayn, balse in hoodo oo qorshaha ku jirtay ay arrin noocaa ah ku dhaqaaqdo ayaa dhib noqotay. waa laga dhex toosay. qiil ayay u raadinaysaa sawirka. way weydaa, haddana waxba ma huwana, haddana way gubanaysaa, way karaysaa. naxdintii ayaa weji kale qaadatay. calooshii xanuunaysay ayaa bogsatay. dareenkii nooca ahaa ayaa mid kale noqday. cadho iyo ciil ayuu isku beddelay. saacadda ayaa sida daqiiqadaha u weydaaranaysa. su-aalaha aan jawaabaha wadan ayaa ku mudan maskaxdeeda. hal mar ayay isrogtay intii ay jiibtay iyadoo aan rabin. way gamacday. 2 saacadood kadib ayay ku soo toostay dhawaqa telefoonka. waa Zahra. naamaad hurdaa, waanu kugu soo soconnaaye adigiiyo ayo. dee anigiiyo hooda ayay ugu jawaabtay. xarfaha dambe markii ay dhegaheedu gaadheen waxay uga dhiganaayeen biyo qabow oo lagu sayray. kor ayay u booday. orod ayay guriga dhexdeeda ka bilowday. dhar aad u qurux badan ayay isku taagtay. si degdeg ah wejiga ayay u rinjiyeysatay. afkeedii oo muddo xidhnaa ayaa qosolka u sii tababartay. in aan laga dareemin sida ay tahay ayay go'aansatay. cadceedda oo aan weli fadhiga ka kicin ayay iyadu bannaanka u soo booday. wejiga baabuurka dhexdiisa ka soo dhoola cadaynaya ayaa hor keenay xasuustii sawirkii xalay. ku su'aalood ayay rabtay in ay mar kali ah weydiiso, wayse kala guri kari weyday. salaan ay soo qasabtay ayay si dayacan ula eegatay wejiga hooda oo warwarku ka muuqdo. kursiga dambe ee bannaan ayay si waafi ah u fadhiisatay. bariido iyo hadal korka laga salaaxayo ayaa muddo lagu jiray. waa laysu bixi waayey. Zahra ayaa go'aan qaadatay. iyada ayaa bilowday. naade hooday waad og tahay oo 4 maalmood ayaa war lagaa helin. arrinna waad ku maqnayd. balde sidii ay wax kugu qabsoomeen iyo wixii ku helay noo sheeg oo nala wadaag. cunaha ayay sifaysatay intii aanay bilaabin ka hor. dee horta waa run oo arrin ayaan ku maqnaa. weliba qorshe aan anigu intiisa badan lahaa ayaan ku soconnay. sow waxaad garateen ma aha? najax guux male, gariirna iska ilow. hadalkay dhuganaysaa. maalintii markii aan idinka tegey waa anigii israacnay aniga iyo tii dheerayd. adigu dee waan maaweelinayay ilayne. in badan ayaan u sheekeeyey wax badan oo aan maalmaha qaar ka diidi lahaa. waa runta ayuunbaan lahaa. adigu alxaasil badweyn ayaan ku dhex muquurtay. naaga yaryar maba yaryare laakiin wax sida carruurta u dhaqmaya ayaan dhex tegey. 3 asaasaq oo ay iyadu wax isku yihiin oo qurbaha ka yimidna way jiraan. koox dhan oo ilaa 6 naagood ka kooban ayaan 7 ku noqday. waxaa qasab noqotay in aan sidooda u dhaqmo. waa dad subaxii israaca, habeenkiina saqda dhexe uun kala tega. intaa subaxii layla soo haado ayaa sida marada guriga hortiisa laygu tuuri jiray 2 habeennimo. aniga oo hurda ayaa haddana subaxa lay dul istaagaa. waxay noqotay in aan la qasto. dan ayaan ka leeyahay ilayne.
iyaga in aan ka mid noqdo ayaa dantaasi ku jirtay. Horta sidaas ayaan idinka maqnaa Zahra, oo ma waqti aad nagu soo wacdo ayaad weyday. Wallaahi soo ma dhaaran, haa waan waayay ayay tiri. Marna iyaga ayaan la joogay, marna waan hurday. Xitaa telefoonkaygu 2 cisho isku xiga bilaa dab ayuu ahaa, oo Ilaahay baa igu og. laakiin waan qirsanahay in ay khalad tahay taasi. Anigu xaaladaydu siday doontaa ahaatee waanay ahayd in aan qoraal idiin soo qoro xataa, balse runtaa fiican waxaan islaa way fahmi doonaan iyagu. Najax oo aad u aamusnayd ayaa hadal damacday. Najax ayaa tiri, habeen hore xageed ku maqnayd? Hooda ayaa hadalkii qaadatay oo tiri, habeen hore horta naagahan aan ku sheegay waa naaga hawada la haysta oo nolosha ciyaar iyo qosol u haysta. Dirac iyo xaflad waxaan ahayn kama shaqaynayn. Imika 3 xafladood ayaan 4 habeen ku tagay. Habeen baanu bilaa xaflad ahayn, habeenkana hudheel ayay noo cashageysay. 2 xafladood ee hore iska caadi ayay ahaayeen, dharka oo la isugu faanayay mooye. Laakiin habeen hore Zahra ayaa tiri, haa taa habeen hore ka sheekee. Hooda ayaa hadalkii qaadatay oo tiri, waaniga soo wadee. Habeen hore naag ayaa sii dhoofaysay. Xaflad la qabtay waxaa la yiraahdaa goodbye, waa safar salaame. dad akhyaar ah ayaa imanayay, rag iyo dumarba. Show dadka imanayay Najax ayaa ku jira. Aniguna markaa maan ogeyn. xafladii markii ay muddo socotay ayuu soo galay. dee waatii sidii gaalada la isu salaamay ee dhabanada la iska dhudhunkaday. show kuusowgana aynu ka xaraabaysano, dad baa ku daba tukada. waa ta la kala jiitayba. isaguna ma aha qof waalane, si gaaban ayuu qof walba u salaamay. markii ayaa noogu dambeysay. muddo kadib markii ay xafladdu sii dhammaanaysay ayaa cambara dheer u yeedhay. malaha waxay tusaysay sida ay isugu dhow yihiin. hadda naagtaa waa la qabaa. Najax ayaa tiri, tuma mayada. Hooda ayaa tiri, haa waliya bille beri dhaweed ayaa la mehersaday. laakiin dee waxaan maqlay in ay iyada iyo isagu wada sheekaysan jireen berigii hore. adigu waxba yaana hadal kugu daaline. sidaas ayay ku dhammaatay. Zahra, sawiro ayaad la gasheen? Hooda, haa markii uu sii baxayay. Zahra, si fiican ayaad u qoslaysay. Hooda, alla waynagaa jabnay. naamasaasaa laygu cadhoonayaa. dhibku masawirkaa. Najax, Zahra dee ila hadla. Najax ayaa hadalkii qaadatay oo tiri, walaal cidna kuma cadhoonaysay, qof xoraa tahee cidda aad doonto waad isla sawiri kartaa. Hooda ayaa tiri, Najaxay dhageyso. ninkani markii uu sii baxayay ee uu agteeda ka kacayay ayay Suleekha ku tiri. Zahra, Suleekha waa iyo? Hooda ayaa tiri, dee cambara dheer. iyada ku tiri, Najaxow dee sawir nala gal. waxa wallaahi oo bilaahi in la igu qasbay sawirka oo aan dan ka lahayn. waxa yaree dabada buuran. maxaad isla haydeen? ma Hooda idinka dhex toostay? Najax ayaa hadalkii qaadatay oo tiri, dee maye waanu fahmi weynay. adna waxba noomaa soo sheegin, laakiin dee waa caadi ilay ninku ninkaygii ma ahee. Hooda ayaa tiri, wallaahi bay iga tahaye. haddaad i rumaysanayso xaggeed ka aragteen sawirka? yaa soo geliyey? Najax ayaa tiri, siiq leebal ayaa soo gelisay dee balaayada dheer. Hooda ayaa tiri, waxaasay ka shaqaynaysaa taasina. naaheedhe haddaba anigu kan yaree dabada naagaha le ma xiisaynayo oo wallay iga tahaye. waanad intaqaanaa Najaxeeye oo maanta ima baranayside qorshaheennii ma sii wadanaa? maxaase idiin qabsoomay idinka? qolkii ma la soo helay Zahray? Zahra ayaa tiri, qolkii waa diyaar, haa inaynu heshiis la galno ayuunbaa hadhay. Hooda ayaa tiri, asal weliba anigaa dhiibaya bisha 1 lacagtiisa. Najax ayaa tiri, maxaad u dhiibaysaa? anaa dhiibaye. Hooda ayaa tiri, alla miskiinsanida madaa waxba og. waxaan ka imid naago ay baashu iska ag taaltaalo. maalmahan waan ladanahay. Najax ayaa tiri, alla maxaad wax soo aragtay? Hooda ayaa tiri, waxaas oo dhan waxba ka horeeye. markii uu miiskayga fadhiyay yarku wuxuu noo sheegay inuu xaflad casho ah qasriga madaxtooyadana ku qabsanayo. tigidha ayuu noo qaybiyey. intayadii meesha fadhiday 2 kalena waan ka soo qaaday oo waxaan ku uri keen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa tigidho aan u geeyay. Najax, haye warkaasaa imare. Zahra ayaa tiri, waxba kumaad odhanay, ilaahay ka yaab. Hooda ayaa tiri, waataan ku go'aa, sidaasaan ku uri. deedna wuxuu uri, waa kee gudoomiyuhu ninbuu moodayo. dee waaniga u sheegay ee ku uri, miyaanad maqal inanta geeska Afrika oo dhan laga xushay ee sidaa iyo sidaa ah? wallaahi waataan hooyaday waayaa, wuu u qaadan waayey. xitaa waxaan u sheegay in ay isku magac yihiin ood isku magac tihiin. Najax ayaa tiri, wallaahi wax nool ayaa tahay Hoodoy. wax yarna waan ku cadhooday, iska dulqaado. xafladu waa goorma? Hooda, alla way kan